markii salaadaha lagu jiro lana ducaysanayo oo ama sujuud lagu ducaysanayo ama taxiyaad gadaashii lagu ducaysanayo ama rukuuc lagu ducaysanayo aniguna af carabi aanan aqoonin af kale ma ku ducaysan karaa sida af soomaali iyo af lamida su-aashani marar badanna waana soo martay waxay u soo noqnoqotaa baahida dadka oo badan oo dadku waa cajam carabi ma yaqaanaan salaada dhexdeedana waqtiyada ducada la aqbalo baa ku badan marka su-aasha jawaabteedu waa haa af kale waad ku ducaysan kartaa lil xaaja waxayna masalada asal u ah waxyaabihii carabiga lagu akhriyi lahaa ee arkaanteeda ahaa hadduu qofku caajis ka yahay oosan akhriyi karin bay culimmadeennu banneeyeen tarjamadeeda oo luqadiisa uu garanaya macnaheeda inuu ku akhriyo waxyaabihii salaada sixadeedu inay asaxda ku xirnayd haddii xaaje iyo cajzi uu qofkii ka cajisay darteed tarjamo loogu oggolaaday waxyaaba aan salaada waajibaadkeeda ka mid ahayn ansixitaankeedana aan ku xirnayn isagana uu u baahan yahay rabbigiina la khitaabayo inay bannaanaatahay min baabi owlaa ka mudan wey la dhihi maayo af kale haddaad ku hadashay aadamaad la hadashay waayo carabiga yaa rabbi haddaad ku tiraahdo iyo haddaad soomaaliya ilaahay uu ku tiraahdo labadaba rabbi baad la khitaabaysaa ood la hadlayso hadalkaa uu ku socdaaye midna kalaamu nnaasi midna ma aha